آدي آدان وسلامة شعورتي إذا لما سوى كوبي كراماتا إنا ماتا كسو قيب كالو أرنتان فيلين كان ماتا هل كان لوغو سو بندقايو waxa aad ugu mahadcelinaa waxay tahay ana codsana waxay tahay shirkadda oo maanta xooga gelisay inay filinkan halkan lagu soo bandhigo oo majhuudkan aad u weyn gelisay waxa codsana waxay tahay aad in loogu sacbiyo ana leena waa mahadsantiin laba waxa codsana waxay tahay fanaaniinta oo maamooyinka maamada iyo aabaha ku jiro iyo dhalinyarada qurqurxoon aad oo action code iyo film code ee maanta halkan ku soo bandhigeen ayakan aad in ugu sacbino oo leenahay future fiican leeyahay dadka noogu muhiimsana halkan ka hilmaamna maanta waxay tahay martida noo joogto oo directorka oo noogu yimid Kenya oo leenahay waa ku mahadsantiin inaa maanta nala joogtiin film aad u qurxoon ee sameeyeen maantana waa guul inay directorial ajnabi dalkeena imaadaan oo film ku sameeyaan marka aad iyo aad shucuurteeda soo koobi kan aad iyo aad ugu faraxsanahay aad iyo aadana dadaalkaas u wadeen inta qof walba ka soo qayb gashay abwaanka wuxuu sheegay waxay tahay arinta bacda waxa rabaa inaan ka hadlo arimaha deegaanka filmada dadka sameeya fanaaniinta mar walba waxay ku soo daraan fariimaha oo bulshada iyo dhibaatada dalka ka taagan waxa codsanaa waxay tahay fanaaniinta inay fariinta wacyigelinta ay ku soo diraan dhibaatada naga haysto arimaha deegaanka deegaanka waa meel aan ku noolnahay sida halkan ugu jeedeen dalkeen aad u qurxoon yahay wuxuu u baahan yahay in la badbaadiyo deegaankeen dadka badbaadin karna waa idinka oo ina isku tiirnaano oo wacyigelinta la adkeeyo oo filmada arimaha ina dhirta la jarin ina qashka la tuurin ina bacda la isticmaalin sida ogtiin Kenya dalka noogu dhow in isticmaalin bacaha waa ka warhaysiin Middle East waxa ka qayb galnay East Africa hal wadan oo bac isticmaasho ma jirto Soomaaliya ka ahayn sidaas oogeed anaka dhibaato xoolaheena caafimaadkeena wax walbo xoolaheena ay cunto ay ogtiin wax walbo waxa ku jirta waxay tahay arimaha deegaanka iyo bacda dhibaatada maanta noogu keentay marka waxaan iga codsanaa dhalinyarada aabooyinka hooyooyinka arintaas inaa ka dabaaldegno oo ka baxno xaaladda maanta dalka ay ku jirto fariimahaasna iyo wacyigelintaas fanaaniinta ka codsanaa iyo dhalinyarada fanaaniinta inay fariimahooda gurigooda iyo dariskooda iyo ummadda Soomaaliyeed oo bandhigaan aad iyo aad u mahadsantiin farxada ay tahay maanta halkan naga soo qayb galo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi.